السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله قالقة أنيقا وايا walaashiina kaltuuma kuukin waa nii salaamay meel kastoo adduunka aa ka joogtaan kusoo dhawaada janalkeyga gacmo furan kusoo dhawaada walaalaheeni hore walaalaheeni cusub kulligiina soo dhawaada walaalaheyga maanta waxaa nii wadaa alaab oo maasha Allah aad u macaan badan aad ka heli doontaan waa sidii waxaan u sameyn doonaa bijiye camal waa kana geedkan sahraagan rabaa inaan ka sameeyo 1 kiilo waaye wajigiisa horena waa kaasa noocaas uu egyahay broccoli uu egyahay inta waxaan ku haystaa 1 koob bur waaye 200 gram waaye burkii cadaay waaye liin dhanaan la xab waaye baking powder nus qaando u baahanahay kabsar caleen waaye 1 qaando waaye 3 xabo ukunta normal waaye basbaas cagaar waaye keeni Soomaali ahay xawaajiyaashu waa kana 3 nooc oo isku darsan way kaas iyo cusbo toon intaasaan u isticmaalaa iyo waxaan u baahanahay geedka lagu hoolayo karootada iyo qajaarka kaasaan rabaa insha Allah alaabta geesaan iskaga leexiyay waan kala gooynaa waxaan rabaa inaan soo dhaqo markii ugu horeysa koraan ka soo dhaqay dhaqitaan labaad oo celinaa baasmiirkan kurida markaan soo dhaqan soo celinaa hadda waa kana si fiican oo soo dhaqay adigana si fiican iskaga dhaq baaquligeyga waa kana geedida aan ku hoolanayna waa tan maanta geedana isticmaalayna wax mashiin la dhahay warkeeda ma jirto hoolataankiisa sahal waaye wax dhib badan ma lahan geedan aad u jilcan tahay gobolkii labaadaan hoola hadana gobolka markaa hoolo waxaan u baahanahay inaa kulli caadi oo soo hoolo markaan soo hoolo la isku soo laabaneynaa marka waa kaasa walaalaheyga wixii geedahan iska bixi dabada dambe ha ku darsanin waa kaasa sida qumbaha kala waaye marka waa kana waa soo dhameeyay kulligeeda qaabkaas ay noqotay ukunta ku jibinaa 3 xabo kabsar caleentan ku daraa 1 qaando kabsar caleen waaye xawaajiga waa kana 3 nooc 1 qaando waayadana oo shaal lagu labto cusbadana qaando haafkeeda waaye 1 qaando laakiin qiyaasta 1 qaando waaye waa kana toonti 1 qaando waayadana burka waa kana haafan ku daraa haafna reebaa gadaalan ugu daraa sida cajiinka camal u qasida laga rabaa haafkii kale ku daray marka qasitaanka waa laazim inaad isdhex gelisid waaye burka iyo sahrayga waa kana baking powder qaanda haafkeed waxyaraan ku qasaa basbaaska waa kana askana kulli waa go'san yahay liin dhanaanta ku miiraa 1 xabo liinta jeexidii labaad waa kan marka waa isku qasaa kulligeeda hadda sida cajiinka oo kale u qasay wax dhib ma lahan hadda waa kana saanay noqotay sida bijiye oo kale waaye hadda waxaan u baahanahay marka inaan dubo qaybta dibistaan geynaa waa kana waxaa imaaday qaybtii dubista makiinada way ii shidan tahay marka waxaan rabaa inaan isticmaalo saliid saytuun adiga waxaa rabtid isticmaal saliid saytuun waxaan ku shubanaa koob haafkeeda halka saliidan ku bilaabay saliid markay soo kulaato leewa aan rabaa inaan ku rido baaquligan biyaan ku soo shubtay inaan gacanta gashtaan rabaa kuleel zaa'id looma baahno waxaa loo baahan yahay kuleel dhexaad inay ahaato oo ciyo ka gaduudanin haddii geeday hoos ka gaduudato oo ciirin ay ku tahay markaas faa'iido ma lahan hadda xabadii koowaad ku bilaabaa waa kaasa sidaas u sameeyna adina sida rabtid u sameyso daarta qaado xabadii labaad isla sidii leeyahay u sameeyna xabadii saddexaad arwa walaalaheyga inaan kulligeed ku soo wada rido saddexdan xabaan ni tusay qaabkan uu ku ridaayo marka gidinaysid waa 2 daqiiqo inay soo wareegato oo hoos wax yar gaduud ay noqoto
gaduud zaa'id maaha, gaduud meel dheer markay noqoto oo korna ciriin ay ka tahay markaasaa gedinaysaa sida duulasha camal ay kuu noqonaysaa markaas dhexda waxay ciriin ku yeelanayso. marka sidaasaan ku wadaa dhinac markay gaduudato dhinac kale u sii gedina. marka wax dab badan iyo waqti dheer nooguma baahno 5 minutes aan ku dubaynaa iyada dhan. marka waa kaasaa walaalahey la socda. hadda way soo gaduudatay marka nalka iftiinka zaa'id ah laakiin way gaduudan tahay bis waaye bixitaan leh u baahan tahay inaan ka bixiyo. halaan gaduudka badan ma rabo. xabadii koowaad aan ka bixinaa. saxankayga diyaar uu ii yahay tiishu waan soo saarta waa kana. xabadii labaad marka kulligood aan ka wada bixinaada. markaan kulligood ka wada bixiyo markaas kadibna miiska aa ku arkaysiin insha allah iyo wixii aan ku cuni lahaa. waa kana qaybta miiska aan soo wareegsaday hoos waxaan kasoo saaray ansalaato iyo jijiir kulli isku darsan waaye. macaan badan yahay adaab ka heli doontid dhadhankiisa aad u macaan badan yahay kulli anigu iga cajibiya. waan baroobeynayna dhexdiisa waa kaasaa wuu bisil yahay bijiya xataa waa laga macaan badan yahay aad u macaan badan yahay. marka waa dhidhiminaa hadda hal xabo. ciyaalkoo kale basbaaska ka reebaysaa. waayeeladoo kale qof xanuunsan ama dhiig kar qabo cusbada ka yaraynaysaa. فيديو انتصوا في اجياي داوشة الفيديو وكما هتسنتين. السلام عليكم.